Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawada kusoo dhawaaw muuqaal cusub. Maxaa ka jira in shirkadda WhatsApp tijaabinayso adeeg cusub oo macaamiisheeda u sahlaya inay isticmaalaan aaladda WhatsApp ayagoon xitaa wadan taleefankooda gacanta. Suurtagal ma tahay arrintaasi? Haddaba si aad ogaato arrintaasi, sii daaw muuqaalkan si aad u ogaato xaqiiqada dhabta ah. Mahadsanid. Shirkadda WhatsApp ee laga leeyahay Facebook ayaa tijaabinaysa adeeg cusub ee dadka macaamiisheeda u ogolaanaya inay fariimo isu diraan iyagoo xitaa aan wadan wax taleefan ah. Waana markii ugu horeysay ee arrintan iyada ah la isku dayo. Waqti xaadirkan, WhatsApp wuxuu dadka ku qasbaa inay taleefankooda ku xirnaadaan iyagoo la'aantiisa aan isticmaali karin adeegga. Xitaa marka laga furanayo kombiyuutar ama aalado kale, waxaa laga maarmaan ah in lagu xiriiriyo isla taleefanka. Laakiin adeeggan cusub wuxuu dadka siin doonaa fursad ay fariimo ku heli karaan xitaa haddii taleefankooda uga damay batari la'aan awgeed. Ilaa 4 aaladood oo kale sida kombiyuutarada ama tabletyada ayaa si wadajir ah looga isticmaali doonaa sida ay sheegeen mas'uuliyiinta WhatsApp. Marka hore, adeeggan qaab hordhac ah ayaa loogu fasaxi doonaa koox yar oo ka mid ah macaamiisha. Shirkadda ayaana sameynaysa dadaal lagu horumarinayo adeeggaasi ka hor inta aan loo fasaxin qof walba. Ilaalinta xogta qoraalada laba dhinac oo ah adeeg WhatsApp ay ku caanbaxday ayaa weli kusii shaqayn doona habka cusub ee la soo kordhinayo sida ay maamulka xaqiijiyeen. Shirkado dhowr ah oo u shaqeeya sida WhatsApp ayaa horey u sameeyay adeegyo noocan oo kale ah, waxaana ka mid ah shirkadda ay xifaaltamaan ee lagu magacaabo Signal, taasoo macaamiisheeda taleefanka ku xujeynaysa marka ay isdiiwaangelinayaan oo kaliya. Qof walba oo adeeggaas isticmaalo kuma qasbana inuu taleefan haysto marka uu fariimo dirayo ama helayo. Laakiin muddo dheer ayaa WhatsApp laga dalbanayay adeeggan, iyadoo lagu soo waramay inay codsadeen macaamiil gaaraya 2 bilyan oo ruux. Bayaan lagu shaaciyay tallaabadan cusub ayay injineerada Facebook ku sheegeen in isbeddelka uu u baahnaa dib u fikirid ku saabsan software-ka lagu sameeyay WhatsApp. Sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay shirkadda, qaabka hadda la isticmaalo wuxuu ku qorsheysan yahay taleefanada casriga ah maadaama ay iyaga kaliya awood u leeyihiin ilaalinta macaamiisha xogtiisa. Adeegga kombiyuutarada ee WhatsApp Web iyo aaladaha kale ayaa ka dhigan sida muraayadii oo kale maadaama laga arkayo taleefanka gacanta ah. Hase yeeshee, qaabkaas ayay macaamiisha ka cawdeen maadaama uu mar walba kala go' ku yimaado. Taas ayaa sidoo kale ka dhigan in halkii marba meel laga isticmaali karo WhatsApp-ka, haddii meel kale laga furana uu xirmayo midkii hore ee shaqeynayay. Adeegga cusub ee WhatsApp ugu talagashay aaladaha badan wuxuu meesha ka saarayaa ciladahaasi, mana dalbanayo taleefan casri ah oo saldhig u noqda isticmaalka. Welina waa la sii ilaalin doonaa xogta macaamiisha, ayay tiri shirkadda. Laakiin Jake Mori oo khabiir ku ah amniga kana tirsan shirkadda la dagaalanka fayrasyada internetka ee EZ ayaa sheegay in si walba loo ilaaliyo amniga marba haddii aalado badan la isticmaalo ay halis gali karto xogta macaamiisha. Markasta waxaa jiri doona dad xumaato sameeya oo isku dayi doona inay xadaan xogta, ayuu yiri Jake Mori. Dadka tacadiyada ka geysta qoysaska dhexdooda iyo kuwa shukaansiga qasabka ah raadiya waxay fursado u heli karaan inay adeeggan cusub u isticmaalaan danahooda khaaska ah si ay xogo dheeraad ah u helaan. Wuxuu sidoo kale sheegay in qofka macaamiisha ay mas'uuliyad ka saaran tahay sidii uu mar walba isaga ilaalin lahaa kuwa sida qaldan wax u isticmaala. Haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo boqotay channelkeena Xogta Samir Cade, fadlan subscribe, like iyo share. Mahadsanid.